waxaa maanta magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal laga daahfuray wejigii afraad ee barnaamijka shaqo qaran waxaana munaasabada furitaankani ka soo qayb galay badiba maamulada degmooyinka dalka iyo gobolada Somaliland waxaana goobjoog ahaa furitaanka barnaamijkani shaqo qaran agaasimaha guud ee shaqo qaran ee Somaliland iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasiir ku-xigeenka amniga iyo sidoo kale barasaab ku-xigeenka gobolka Maroodijeex iyo sidoo kale barasaabka gobolka Togdheer gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka Somaliland iyo sidoo kale waxa goobjoog ahaa munaasabadani barasaabka gobolka Gabiley iyo sidoo kale barasaab ku-xigeenka gobolka Sool maamulka gobolka Awdal iyo kan degmada waxaana halkaas ugu horeyn ka hadlay agaasimaha guud ee shaqo qaran Maxamed Xuseen Cismaan Muadinka ayaa waxa uu yiri oo taariikhdu tahay 7 bisha barnaamijka halkan aynu isugu nimid aynu dooranay inaynu ku qabanno magaalada Boorame waa daahfurka ama shaacinta dafcadii afraad ee barnaamijka shaqo qaran su'aasha ugu badan ee dhalinyaradu had iyo jeer isweydiiyaan ama ay ku weydiinayaan waxa weeye goorma shaqo qaran la furaya kulligood waxay ku hamiyeen habliyeen nababa inay ka qayb qaataan oo imtixaanka u galaan maanta marka ahmiyadda halkan aynu nimid waxa weeyaan inaynu shaacino oo dhalinyarada Somaliland ay ogaadaan in laga bilaabo maanta siga Play Store-ka application-ka ku jira waxa ay ku qorayaan kaliya shaqo qaran dadna waxa soo baxay application-ka way la soo degayaan halkaas ay ka bilaabayaan codsigooda inay soo gudbiyaan waxa ugu horeeyo application-ku weydiinaya waxa weeyaan national ID-ga numberka aqoonsigiisa muwaadin laga bilaabo maanta application-kaas la activate gareynayo oo ay gali karaan oo ay halka ka dalban karaan codsiyadooda ka soo gudbin karaan run ahaantii mashruucan shaqo qaran waa mashruuc ahmiyadiisa leh waxaanan ku bogaadinayaa dhiiranaanta iyo kalsoonida uu ku abuuray madaxweynaha qaranku mudane Muuse Biixi Cabdi mashruucan oo waxtar fara badan u yeeshay da'yartii jaamacadaha ka baxaysay maantana waxaynu joognaa dufcadii afraad oo daahfurkeegii lagu qabanayo degmada Boorame gobolka Awdal waxaan ku soo dhaweynayaa gobolkii Awdal marka barnaamijka shaqo qaran berigi dhawtay aynu halka joognay Maxamed iyo ogyihiin qodadan muadin iyo waxaan bahalka la sii wado waa halka aynu ka galayno horumarka cadaaladda aynu ka galayno dhalinyarada aan kalsooni ku soo celinayno maalmihii hore waxba ma yarkayno waxa arkayeen in xirami la tiriyo la geynayo laakiin marka way sii sugaanayaan goorma bahalkii la furaya marka waan idinku hambaleynaynaa aad iyo aad waxa alla waxay aad nooga baahataan waan idinka garab galaynaa anigu shakhsiyan waxaan xasuustaa markii programka xisbiga la diyaarinayay doodaha programka xisbigu socday sidii looga fikirayay iyo dad badan siday riyada ula ahayd inuu socon karayo falilahi alxamdu agaasimaha barnaamijka shaqo qaran iyo madaxweynuhuba hawl fiican bay hawshaa ka qabteen waxa uu meesha ka saaray culaysyo badan iyo in niyad jabka shaqaalaysiintu ay meesha ka baxdo oo waayo waxa inta badan iska caado ahaan jirtay haddii aanu qofku cid garwadeen ka dhigan inuu shaqada soo galaa ay hawl ahayd sidoo markaa meesha imika way ka baxday temporary-gii wuu ka baxay waxa weeyaan muxuu ahaay qof waliba wuxuu ku dadaalayaa oo la beegsanayaa sidii uu kartidiisa iyo aqoontiisa iyo hufnaantiisa meel ugu gaari lahaa waxaan jecelahay inay ka digo boqolkiiba 65 shahaadooyinka idin imanaya badidood waxay u badan yihiin forgery samays ama been abuur in aad looga taxadiraa loo baahay oo loo eegin ama ardaygu ka soo jeedo ama wax kasto ku xeeran si aynay cadaaladdu inooga fashilmin imtixaanku waan hubnaa anaga imtixaanka mar walba inta sanadkii malaha 8aad weeyi haday shaqo qaran tahay iyo haday meel kale tahayba sanad walba kitaabka gacantaanu saarnaa ay noqoto in lagu xulo gobolada halkay base-kuna waxa weeyi waa xulista hore marka hore la xulayo si aanu ardagana u luguin mid kale oo wax garanayna uu meesha uga buuxin marka hore kullay aniga Maxamed yana waan arki doonaa kriteeriyada aynu qaadanayna inay tahay tu aan isla wada ognahay shahaado nooceega inuu sugnay marka hore daahfurka dufcadda afraad ee shaqo qaran la yiraahdo barnaamijyada noocaas oo kale cadowguna uu ka naxa marka intaas oo arday oo tuuta xidhan arko gacalo ku farxayaan waa barnaamij aynu aad u mahadinay inaynu laakiin aad isu garab taagnaa loo baahan yahay annagu gudoomiyahan dushu maanu idinka eegaynaa mooyaane
dee hawsha cidda ku guda jirta waa guddoomiyaasha waxbarashada gobollada iyo kormeerayaashooda iyana sanadkan dadaal badan baynu ka filaynaa ama programkan shaqo qaran waa barnaamijyada ay ku faanto intii iminka madaxweyne muuse biixi cabdi uu talada hayay la bilaabay ee la socodsiiyey ee la howlgeliyey runtiina qiimeyntii waxaa ka soo baxay inuu yahay program aad iyo aad u qiimo badan oo wax badan qabtay oo bulshada Soomaaliland isdhexgalkeedii ka qayb qaatay barnaamijkanu waa barnaamij insha Allah sii socon doona shaqo qaran ujeedada ugu weyn ee loo sameeyay wuxuu ahaa ama laga faa'iiday cadaaladda in ardayga jooga degmada Ceelaayo iyo ka Sayrac jooga iyo ka Buuhood la jooga ay u sinaadaan shaqaalaysiinta shaqaalaha dawladda waxaan ugu dambeyn si rasmi ah ugu dhawaaqaynaa inuu furan yahay barnaamijka shaqo qaran dufcadii afraad markuu soo idlaaday daahfurka wajigii afraad ee barnaamijka shaqo qaran ayaa wafdigani waxay u kicitimeen dhinaca iyo jaamacadda Camuud iyagoona kormeer kala duwan ku soo maray qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama waa Jamaal Cumar Tubeec telefishinka badda Cas 24 TV magaalada Boorama